jaceylku waa dareen qalbiga ka soo go'a isla markaana ku awoodmo qofka ma garanayo qofkan waa uu sareeyaa midkanna waa uu liitaa jaceylka waa waxa ugu qiimaha badan ee la haysto waa waxa ugu adag ee la kasbado waana waxa ugu xanuunka badan ee la waayo dad magac iyo maqaam sare ku leh dunida ayaa jaceyl dartii good u galay kuwa kale xanuun ayay la ildaran yihiin xubintan waxaan kugu soo gudbin doonaa qisadii xanuunka badneed ee ku dhacday aktarka caanka ee Salmaan Khan isagoo jeclaaday gabadha ugu indhaha qurux Aishwarya Rai खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों cabdulrashiid saalim salmaan oo ku magac dheer Salmaan Khan oo ka sheekeynayo qisadiisa jaceyl ayaa yiri ugu horeen waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala ii suurtageliyey in aan maalmo badan kadib aan helo meel aan fariinta qalbigayga ku duugan kula wadaagayo walaalahayga wiilal iyo hablaba sababtoo ah waxaan ahay walaalkiina haddana aad u qalbi jabay inkastoo wax walba ay qoran yihiin magacaygu waa cabdulrashiid saalim waxaan ku noolahay magaalada Mumbai ee dalka India waxaan hadda jiraa 53 sano jir waxaan doonayaa in qiso igu dhacday aan idiin soo gudbiyo muddo hadda laga joogo 19 sano da'deeduna ahayd 29 jir ayaan waxaan isbaranay Aishwarya oo xilligaa ahayd 25 jir balse hadda ah 94 sano jir waxaan ka howlgeli jiray shirkadda Buluudka iyadana Buluudka ayaa qayb ka ahayd waxaa sheeko saaxiibtinimo kadibna dhexmaray xiriir jaceyl wuxuu ahaa jaceylkii ugu horeeyay aan yeesho waxaa wada soconay muddo 3 sano ah nolosha bilowgeedii ilaa iyo gadaal dambe aad baan isku faraxsaneen waxyaabo badan ayay igu dulqaadatay waayo waxaan ahaa mid qamri cad badan waxaa jirto qisooyin badan aan isla soo marnay xitaa ehladeeda qaarkood ayaa igu nacay gabadha aan jeclaa way igu samirtay waxaa la yiri bishoo ku jecel bakaal muxuu kaa dhibaa hooyadeeda ima necbeen laakiin waxaa aad ii necbaa aabaheeda Majin Krishnan Rajil Raut oo gabadha nin kale la damacsanaa balse taasi ma aysan dhicin oo iyada ayaa garabkayga ahayd xaafadii ay degneed iyo midii aan aniga degnaa jaceylkeena uu ku baaxay waxaan noqonay dad lagu sheekaysta sanadba sanadka ka dambe ilaa dadka qaar ay moodaan in aan isqabno ha yeeshee Aish ayaa loo soo bandhigay filim isla markaana la doonayay in mashruucaasi ay ka qayb qaadato way ka madax adeegtay waayo mashruuca filimka ayaa wuxuu ahaa mid dareen leh waxay ogeed in aan aniga ahay mid maseer badan hase ahaatee habeenada ka mid ah ayaa waxaa isoo wacday hooyadeeda waxaa liiga dalbaday in aan xaafadda imaado markii aan tegay ayaa hooyadeeda waxay iga codsatay in aan u fasaxo si aan mashruucaasi u qasaarin laakiin niyadda waxaa liigu qaboojiyey in aniga ii joogto xilli walba waxaan sameeyo ayaan garan waaye waayo nafteeda ma aysan ogoleen qof aan jeclahay inay qof kale la hasaahdo waa iga daacad sheekadan waxba kuma darayo waxbana kama dhibayo ayuu yiri Salmaan Khan waalidka waxaan ku dhahay waan ogolahay wax walba oo idinku jeceshihiin ayada ayaan qolka u galay waxaan ku iri anigoo aad kaga xun xabiibti labadeena waan isjecelnahay cidna mana kala keyn karto waxaan kaa baryaa in aan hooyo aabbo aan niyad jabin si aan duco u helno aad tooda u yeesho diidmo kadib way iga aqbashay waan xasuustaa habeenka ma aan seexan
aniga ilintii way iga dhammaatay. maalmo kadib waxaa bilaabday mashruuca filimka. प्यार कर लो तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।